waxaa jira fariimo beena oo dadka aada loogu fidiyo. waxaan rabaa inaan ka hadlo laba nooc oo mid ay laba tahay. nooca koowaad aan raba inaan ka hadlo waa fariimo badan oo qoraal idinku soo gaaraya oo laleeyahay waxa haddaad akhrida waxaasaad heli, aadkuus haddaad akhrida waxaasaad heli, qurwalle inta haddaad akhrida waxaasaad heli, digri haddaad akhrida waxaasaad heli, muddo intaa le gudaheed baad waxaad ku arki, haddaad samayn weyey fariintan fidi, haddaad fidin weyda dhibkaasaa kugu dhici, oo ballanqaadi oo sidaasoo badan oo been ah. arrimahaasi shaki badan waxaa laga qabaa inay ka dambeeyaan dad aan muslin ahayn. nuxurka iyo ujeedaduna diinta dadka in laga shaki geliyo ay tahay. laba arrimoodba marka waa muhim inaad ku baraarugto. marka koowaad, waxaan la sheegaya waad heliyo kugu dhici laleeyahay waxba kama jiro. aayadna ma sheegin, xadiid nabi oo suganna ma sheegin. waa been ay dadku sheegeen, waa been la alifay oon sal iyo raadtoona lahayn. saa darteed ballanqaadyadani diinta ka mid maaha. sax aad kursi in la aqriyo fadli bay leeyahay tusaale ahaan, laakiin haddaad akhri weydo waxaasaa kugu dhici iyo haddaad akhrinta akhrida muddo intaa la eg baad wax ku helido been wey. qodobka labaad ee ku baraarugta ay tahay waa xumaanta ka dambaysa. haddii maanta ballanqaadka aad rumayso ood arki weydo, mid labaad aad arki weydo, mid saddexaad arki weydo, mid shanaad arki weydo, mid tobnaad arki weydo, marka dambe waxaa iman diinta waxaanu ballan qaadaysee wada beentaa maxay tahay. diinta inaad ka shakida wey waxaa labaad imanaya. waana yoolka laga shakisan yahay hay-ada iyo shakhsiyaad iyo dad badanoo waxaa ka shaqaynaya inay hiigsanayaan. haddaba si khaldan yaan lagu raran. fariinta labaad aan raba inaan baraarujiyo waxaa weeye, maalmahan qof codkiisu aada isugu egyahay, isshabaho, oo wuxuu soo diraa fariimo xambaarsan axaadiid nabi sal slam laakiin beena. aan laba fariimood ka soo qaato. waxaa laga yaabaa inaad ila aragteen aada iyadoo la isugu dirayo fariin odhanaysa nabi maxamed baa sal slam 4 jirkay ku jiradaan, 4 jirkay dumiyaan, 4 risiqay reebaan, 4 risiqay furaan, 4 wejigay nuuriyaan, 4 wejigay nuurkiis ka qaadaan. taas waa been. nabi maxamed ma dhihin sal slam. waa dardaaranno dhakhaatiir bixiyeen. ibnulqayimna zaad almacaadka akhirkiisa ku sheegay. qaarkoodna niman dhakhaatiir oo griigii hore jalin yos iyo rag lamid a bixiyoon muslim ba ahayn. taas nabigaa yidhi waa been, waxba kama jiro. isla fariintaa waxaa ku duuban in nabigu calayh isalaatu wasalaam uu yidhi saytuunku saliidda zaytuunku 7 cudur bay dawa ka tahay. waa been. nabigu ma dhihin sal slam. waxaa ka mid ah aadaanka ha la aamuso waxay aan la akhriyin. nabi maxamed wuxuu yidhi haddaad aadaankoo socda wax akhrido shahaadada sakaraadka markuu qabto tawxiidka haleeli maysid. iyana waa been, waxba kama jiro. nabi maxamed baa hadli jiray, saxaabadaa hadli jiray oo sheekaysan jiray aadaankoo socda, sida muwata maalik laga wariyey. cumar markuu khudbaynayo fuulo mimbarka salaada la joojin jiray, inta la aadaamayana waa la sheekaysan jiray. saasay saxaabadu ahaan jireen. marka iyana waa been, nabigu ma dhihin. waxaa ka mid ahoo fariinta uu xambaarsan yahay rumaanka iniintiisa iyo midhihiisa mid kastaba biyaha ku jira jannay ka yimaadeen ama biyo jannaha ku jira. waa been. nabi maxamed ma dhihin sal slam. fariintaa dhan laba eray baa runka ah. nabigu wuxuu yidhi balliquu canii walow aaya, iyo nabigu wuxuu yidhi xabatu sawdaa shifaahu min kulli daa. inta kale waa been. nabigu ma dhihin sal slam. fariinta labaad aan tusaalaha kusoo qaadanaya kale waxaa weeye codkaa shabaha ninkaana u eg yaa wuxuu werinayaa fariin ku bilaabanaysa wallaahi wabillaahi watallaahi. haddaad dhegaysata wuu ku saamaynayaa, qalbigaa waxuu ka bedelayaa. duruusun fi lxub. intaa dhaarta ah muxuu ku dhaartay? been buu soo wadaa. wuxuu leeyahay nabiga iyo cumar iyo abubakar iyo abudar baa meel isugu yimid. nabigu abubakar buu weydiiyeyoo maxaad jeceshahay buui. adduunyada 3 baan u jeclahay buui. cumar buu weydiiyeyoo 3 baan u jeclahay buui. abudar buu weydiiyeyoo 3 baan u jeclahayoo jire iyo cudur iyaa ka mida. kadib nabigaa la weydiiyo adduunyada 3 baan u jeclahayoo atiibu waannisaau wasalaatu buu yiri buu leeyahay. intan dambe oo weli wax khaldani ku jiraa ka jirta. tan nabiga calayh salaam way jirtaa. xubiba ilaya min dunyaakum atiibu waannisaa wajucilat quratu cayni fi salaa. adduunyadiina riwaayaadka qaarkood odhanaya 3 waa been. riwaayada 3 ma jirto, waayo salaadu adduunka ka mid maahaba. atiibu waannisaa nabigu waa yidhi. sheekadan kale ee ku lamaani waa been. meel kutubu sunna ay kaga qoran tahayna ma jiro. inay sidaas tahayna culammadu waa sheegeen.
nin la yidhahda Qasطalaani buu Mawaahib laduniya ku sheegay Ajruurina fi kashf al-khafaa markuu sheegay meel lagu garanayo inay jirin bay sheegeen marka sheekada beenta buu dhaar uusan Ilaahay ugu baari samaynin buu ku horreysiinaya codka ninkan iyo ninka waa isu egyihiin dee ciddii garanaysa fariinteeda ha gaadhiso muslimka beentana dhaxwada ka daa la yidhahdo nabigan laga been sheegay been la mid maaha khayr baan jeclahayna qiil uma aha in nabiga laga been sheego dadka fariimaha beenta sheegayana intaad waxaan khayr baan jecelahay tiraahdaan ha dambaabina oo beenta axaadiis haddaad 100 qof u qorto u dirto wada fuwaar garaysaan oo sii dir wada dhadan mid walba wuxuu ku leeyahay akharka agtaada ayaan fadhiin qofka waliba waxaan u sii badinayaa codkiisa oo easy oo adkaysinaya hatta carabi marka si ma garan yaqaan carabi soo wada qofkan ma yaqaan tan dambe saddexda u dhaaranayana Abu Dharr buu magaciisa kale leeyahay tan horana sadaqa jaariyu garan leeyahay sadaqatu jaar weeyay jaar waa diriste jaariya ma sadaqa soconaysa ma hatta jaariya jaar buu kala kicin leeyahay Abu Dharr buu magaciisa kicin leeyahay حينتم بنتن أحاديث مالو كسو قرا الاستعداد ليوم المعاد من حجر لو تيرني بنتها يا ثلاثيات كي رباعيات كي خماسيات كي سداسيات كي عشاريات كبنتها يكبوا حين بانو ملايين أيام بديوكم من نقننه إنه قيب كسو تلتلو وحان ربا فرين تيلو خير كفيدية لكن اسكهو صدق دميرا بنت الورد عن صدق هنقننا مكرفونا بنت وأذيقا هنقننا وقال النبي والله قبل أن شيء وأدم بوين نبي إن كذبا علي ليس ككذب على أحد بين لا يغشى الله من ما بين قفك لا يغشى فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إلهي الله يابو فرنت إذا قفك صوده عدي قراني سيادتك هلا جارسيو بنت هلا سكيل عليه خير له وانا هلا فيديو وما حسنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى